afar calaamadood ee lagu garto qofka ku neceb. Halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa afar calaamadood oo muhiim u ah nafsadaada inaad ogaato si aad uga feejignaato dadka ku neceb ee iska dhigaya inay ku jecel yihiin ama ay asxaab kula yihiin. Fadlan ka hor inta aynaan u gudagelin muuqaalka, like-ta inoogu muuji ka helidaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir, waadna ku mahadsantihiin sida aad inoogu wada like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. Okay, haddaba aynu bilowno. Bani aadamku dabeecad ahaan waxa uu jecel yahay inuu sameeyo xiriir bulsho oo wanaagsan. Waxa uuna ku dadaalaa in markasta uu noqdo qof la jecel yahay oo ay dadka kale raali ka yihiin. Waxaa jira dad aanan ku jeclayn oo dadaal kasta oo aad raaligelintooda ku bixisa aanay ku filnayn, nacayb ay shakhsiyadaada necab yihiin darteed, laakiin haddana isku dayaya inay kuu muujiyaan arrin ka duwan waxyaabaha ay qarsanayaan. Sidaa darteed, waxaan idin soo gudbin doonaa afar calaamadood oo aad ku garan karto dadka ku neceb ee aanan marnaba raali ka ahayn agjoogaaga. afar calaamadood ee lagu garto ruuxa aan ku jeclayn. kow, dhoola caddeyn la'aan. Qof waxaa jira isku fiican tihiin, laakiin maalin un xaaladda ku xumaato mararka qaar dhibaato haysata darteed kaama ahan kan loola jeedo. Qofka ku neceb waa qof marka uu dadka kale la joogo farxad iyo reerreyn muujiya, marka uu ku arkana wejiga kuu bedela, iskuna daya inuu si adag kugula hadlo, indhahana aanan ku siin karin. Waa qofkaas qofka laga hadlayo. labo, iska dhegatirid. Markasta qofka ku neceb waxa uu isku dayayaa inuu iska kaa dhagatiro, uuna ka soo qaado inaadan ahayn qof aanba jirin. Marka uu dadka kale la hadlayana waxa uu muujinayaa tixgelin, adigana waxa uu isku dayayaa inuu iska kaa dhagatiro, waxba uuna ka soo qaadin waxa adiga aad tahay. saddex, hadal kooban. Qofka ku neceb waxa uu kula dhaqmayaa habka soo koobista hadalka. Ma ogola inuu faahfaahin kula galo. Ereyada ugu badan uu isticmaalo waa hagaag, sax, maya, haa. Sidaa darteed, khabiir lagu magacaabo Philip waxa uu yiri, marka falcelinta qofku isku bedesho ereyo kooban, waa arrin caddayn u ah inuusan qofkaasi ku jeclayn. afar, jirdiid. Marka aad aragto inuu qofku jirdiidayo ee astaamaha jirkiisu bixinayo aanay ku farxad gelinaynin, waxay u badan tahay in qofkaasi ku jeclayn, sida inaanu ku soo eegayn oo kale, xaaladda garbihiisa oo ay digtooni ka muuqato oo aanay dabacsanayn, wejigiisa oo kaduud uu ka muuqdo. ugu dambayn, arrimahani waa waxyaabaha dadka cilmi nafsiga bartay ay yaqaanaan, laakiin marnaba qof ha dulmin. Isku day inaad si wanaagsan ula dhaqanto dadka. Haddii aad aragto inuu qofku necab yahay, nacaybkiisa ugu bedel jacayl, wanaagna u muuji, maxaa yeelay shaydaanka ayaa la diidaya inaynu albaab u furno. Markasta qofka wanaagsan isaga ayaa dadka kale ka roonaada. Mar kale aan ku xasuusiyo, like sii muuqaalka, una sheer garay asxaabtaada si ay wax uga faa'iidaan. mahadsanid.